Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada caawa iyo Liverpool iyo Manchester United. Runtii Anfield ayaa Manchester United lagu soo dhaweeyay. Natiijana way ka qaateen Manchester United. Natiijana waa loo reebay Liverpool. Sidoo kale saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa haddaa ku cusubtahay page-ka subscribe iyo like iyo share muuqaalkana meel fog gaarsiiya. Maanta oo axad ahayday oo taariikh 5 January Manchester United ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka Anfield oo roob oo ka da'ay runtii oo xitaa intaysan ciyaarta bilaabanin baraf aad iyo aad u badan ayaa ka da'ay. Marka Anfield xitaa shaki ayaa lagu qabay in ay baaqan karto inkastoo dadaalo fara badan ay sameeyeen dhanka Liverpool ayaa u suurta gashay in ciyaartan la baajinin in lagu ciyaaro. Xitaa Gary Neville ayaa loo jeeda asagoo oo micnaha oo badiilka barafka ku darayo. Xitaa kaftan ahaan waxaa loo yiri adiga ma waxaa rabtaa inaad baajiso micnaha kulankan Manchester United. Gary Neville waxa weeyaan waa legend hore soo ciyaaray Manchester United. Manchester United markii ciyaarta lugta horey waxay ahaaday inkastoo oo laga watay laakiin ciyaartii markii qolka nasashada la galay oo half-cambiga labaad la gaaray ayaa Manchester United waxay la soo baxday geeso ayay la soo baxday oo way macnaha way isa saxday meesha ka qaldan laakiin maxaa dhacay waay Manchester United ayaa kubad ka imaatay Bruno Fernandes oo uga gambiyay wuxuu siiyay horta waxaa la siiyay Garnacho kadib Bruno Fernandes ayaa la siiyay kadibna waxaa kawaanlihii Martinez oo la siiyay kubadii marka Martinez goolka uu dhaliyay Manchester United dig ayay yeeladeen oo macnaha naf ay iska raadiyeen oo xitaa Martinez intuu kubadda soo qaato calooshiga uu gashtay macnaha fariin ayuu diray xitaa taageerayaasha kooxda Manchester United oo xitaa la celin kari waayay farxadda ay u muujiyeen ciyaartooydooda. Martinezna uu goolkaaseeto macnaha uu hoggaanka u qabtay ciyaarta. Kadib waxaa dhacay Cody Gakpo in uu macnaha uu u gambiyay uu seexiyay daafaca Manchester United Delect oo taas ka dhigantay in macnaha uu qalka ka geliyo baloonta shabaqa xitaa Onana uu arki kari waaye taasoo ka dhigneed in kooxda laga soo bareejeeyay Manchester United oo xitaa oo macnaha gamekan lugtan labaad ee soo nasteen ayaa ugu dhigneed in ay badini karaan xitaa fursado badan ayaa khasaariyay ninkan Maguire intii macnaha daqiiqada ugu dambeeyay markii ahayd taas way tahay laakiin maxaa dhacay markii Cody Gakpo uu dhaliyay waxaa iyadana penalty laga dhigay isla daafaca Manchester United ee lagu magacaabo Delect ayaa gacan uu ku taabtay VAR ayaa la fiiriyay waxaa la arkay in ay saxan tahay oo ay tahay rigore penalty ay tahay penalty kick Mohamed Salahna uu ka dhaliyay balse golhayaha Manchester United Andre Onana ayaa u suurta gali weysay inkastoo uu u dhawaaday in uu qabto macnaha uu save gareeyo meel yar macnaha meesha uu u booday ayaa laga siiyay balse uu gaari kari waayay in uu baloontaas uu ka qabto Mohamed Salah ayaa noqonaya history Liverpoolian oo u dhaliyay 175 gool oo Premier League ah oona haddan uu hogaaminayo dhammaan tartanka
Premier League dhammaan inta ku tartameysa uu asaa hogaaminaya wuxuu wataa 18 gool. Manchester United oo taariikh xun gashay runtii 8 game ayaa laga badiyay xilli ay wada kulmay Liverpool. Afarna way barbar dhaceen, afarna wayna macnaha shan ayay barbar dhaceen, afarna waa laga badiyay Manchester United. Manchester United ayaa ka dhigan laga soo bilaabay 2016 ayaa ugu dambeysay xilli uu Jesse Lingard uu dhaliyay uu macnaha ku guuleystay in uu ku badiyo Anfield. Manchester United taariikhdan waxay galaysaa in 4 laga badiyay 5 oo barbar dhac la gasho Anfield. Liverpool 8 ciyaarna ay ahaayeen, macnaha 9 ciyaarood ayaa ka dhigan in Anfield Manchester United laga soo bilaabay 2016 ilaa maanta kumaysan badinin. Lisandro Martinez markuu goolka dhaliyay ay waxay ugu dhigneed Manchester United ciyaartooygooda kaliya ee ku dhaliya Anfield in uu gool ku dhaliya ayay noqotay. sidoo kale Amad Diallo waa uu ku xigsaday. Waxa ugu dambeysay xilligii uu hayay Van Gaal oo Jesse Lingardna uu macnaha uu dhaliyay. Marka ciyaarta waxay ku dhamaatay 2-2 ayay ku dhamaatay. Manchester United ayaa goolka hormartay, waa laga soo bareejeeyay, waa loogu daray, Salah ugu daray, haddana waa kaas waana waxaa isagana ka soo bareejeeyay ninka lagu magacaabo Ahmed Diallo. Marka Manchester United Van Gaal xilligii uu macalinka u ahaa ugu dambeysay isagiyo ay wada kulmeen Klopp xilli uu Rooney u ahaa number 9 uu ka ciyaaray Jesse Lingard dad culus Martial inkastoo ay isku toosin laakiin xilligaas ayay u dambeysay. Inkastoo Manchester United iyo Liverpool Liverpool ayaa badinaysa 72 xilli ay draw galayaan 61. Manchester United ayaa guulaha ku badan 83 guulood ayay ka wadataa dhankaas Liverpool. Sidoo kale Manchester United 3 ciyaar ee ugu dambeysay ayaa hal gool aysan ka dhalinin. Waa taariikh xun oo Manchester United ay dhigayso safarkan. Maysan dhicin in 3 macnaha kulan oo hal gool aysan ka dhalinin laga soo bilaabay 1909 iyo 1936 ayaa ugu dambeysay xilligaas oo Manchester United sida camal ay ku dhacday. Marka Manchester United caawa gashay Liverpool ayaa hadda hoggaanka haysaa oo 46 ayay ku haysaa xilli Arsenal 40 ay ku hayso. Liverpool waxa uu hartay waxa weeyaan hal game ayaa u hartay 6 dhibcoodna Arsenalna waa laga sareeyaa. Sidoo kale waxaa cajiib ah Nottingham Forest oo ka imaatay heerka hoose oo number 3 fadhido ee wadata iyadana 37. sidoo kale Chelsea 36 wadata, Newcastle 35. sidoo kale Manchester City ayaa laga waynaya 5 ugu sareysa Premier League. Hal arin ayaa uu sameeyay macalinkan Liverpool aan Slot xilli uu macnaha 87 sano ka hor in macnaha ciyaarta lagaga hormaro Anfield haddana aad ku soo bareejeyso. waxa ugu dambeysay 87 sano ka hor ugu dambeysay. macalinkan taariikh cusub Slot wuxuu dhigay taariikh cusub oo 87 sano ka hor u taashay 87 sano ka hor ugu dambeysay macnaha in Anfield loogu hormaro haddana uu soo bareejeeyo haddana macnaha uu daro. marka taasna waa taas. Manchester United waxay fadhidaa booska 13aad 23 dhibcoodna way wadataa. marka Manchester United way guuleysan kartay. waxaa xitaa qasaariyay ninkan lagu magacaabo Harry Maguire oo ka helay balondigiisa. Joshua Zirkzee ayuu ka helay
gadaashiisana waxaa taagnayay Alejandro Garnacho ayaa taagnayay. Marka Balooni macantii la siiyey xitaa waa uu degsan karay si mac oo qurux badan ayuu u dhalin karay, balse way ka halaabtay. Baloontu wuxuu mariyey cirka ayuu mariyey xilli 7 daqiiqo ee ka dhimaneyd dhammaadka, 1 daqiiqo bes ayaa ka dhimaneyd. Waxay maraysay 96 ayay maraysay. Marka midaas haddii uu dhalin lahaaye Maguire maysan dhicine, waxay noqon laheeday taariikh kasoo bilaabata 2016 ku badiyeen Anfield. Sidoo kale ninkan loo magacaabo Ahmed Diallo ayaa gool taraarax qurux badan macaan badan uu ka dhaliyay. Liverpool waa markiisa labaad uu sidan uu ku sameynayo, mar uu macnaha FA Cup 2023 uu ka reebay oo xitaa FA Cup kaasna ay qaadeen Manchester United oo semi-final markaas ay aheeday oo xili u gudbayeen finalki. Marka Ahmed Diallo wuxuu noqonayaa ciyaartooyga Manchester markasta ay wada kulmaan Liverpool uu ka dhaliyo goolal. Marka Manchester United 2-2 ayay galeen ayadii Liverpool.